gudoomiyaha xisbiga u cudin Janeer Faysal Cali Waraabe ayaa maanta casuumad waxa uu ku maamuusay gudidii nabadeynta u tagay gobolka Sanaag si ay u dhexdhexaadiyaan jabhadda uu hogaamiyo taliya Siciid Cawil Caare iyo xukuumadda Somaliland. wafdiga madax dhaqameedka oo ka soo kicitimay gobolka Sanaag ayaa waxay isugu jireen salaadiin, cuqaal, ugaasyo iyo waxgarad kale, waxaana hogaaminayay Suldaan Maxamed Xirsi Qani. Injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga u cud ayaa waxa uu mahad celiyay doorka ay ka qaadanayaan adkeynta nabadgelyada. maanta qadadan waxay ku saabsan tahay waa qada sharfeed loo sameeyo Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Cabdi Qani iyo waftigiisii oo bari uu ka keenay Ceerigaabo Sanaag uu ka keenay oo u yimi magaalada Saayasi midnimada Soomaaliland iyo waxyaalaha taagan reer Soomaaliya ka taagan gacan ka geysan lahaa seen soo afshar lahayn khilaafyada in dhex yaala ayay u yimaadeen markaa shalay waxa casuumay reer Hargeysa casuumtay iyagoo mahadsan yihiin laano aad iyo aad been u kala maqnay inagiyo Sanaag kala maqnaashin uu baqnaa madaxdeena uu ku yar tahay raadiyohuna ma jiro gaariyeen kale raadiyo Soomaaliya Hargeysa ma taga Hargeysa raadiyo waxaan jecelahay insha Allah taala inay sidii magaalada Sanaag ahaan ay codkooda u dhiibtaan baahidooda u sheegaan waxay tabanayaan sheegaan wixii khilaaf si loo dhameeyo sameeyaan waxaan jecelahay insha Allah taala inuu socdaalkooda noqdo socdaalkii nabadda iyo mideynta Somaliland insha Allah waan doorkan waa inay shaaqsadayo kafti keenaya TV-da ka baxa ay dadka moodeen inaynu kala tagnay waxaynu kala tagin baan tusinay insha Allah taala dalkana waa hodan waxaan ogaataan Somaliland meesha ugu taajirsan ee ugu kheyraadka badan inay gobolka Sanaag tahay waxa jira hadda qaar inagu soo xidhay salaada oo shisheeya oo khilaafkeena ay ka faa'iideysta leh waa in dadka meel uga soo jeesanaa dawladda wixii aynu xaq u leenahay waynu ku qasbinaa ka barimayno cidina qabsatay ma jirto waa la doortay talada waa la wada leeyahay taynu gooyina soconaysa ku gooya soconaysa ninka madaxweyne noqda waa nala leedin talada siyaasiyiinta dhaqankana waa jiina waa in ku taageernaa maanta waxaan doonayaa insha Allah taala waa aad iyo aad baa u mahadsantiin. Suldaan Maxamed Xirsi Qani ayaa sheegay in ay rajo fiican ka qabaan in ay ku guuleystaan waanta ay wadaan. Sanaag baa u badan waftigan aanu horkacayno leano halka ay khilaafku yaalay loo amba baxay baa hay'ad gobolka Sanaag guul baan ka sidnaa khilaafaad weyn oo xaggeena ka jira maaha waxayna waa fariskutus wixii hoos baynu u dhammaysanaynaa dhammaanteenba bulshadeena iyo reer Somalilandba wixii yaalla hoos baynu u dhammaysanaynaa uga wada hadlaynaa waxaan rajaynaynaa inay dhammaan si fudud ku dhammaato oo degdeg waftigan isagoo guulaystay dib ugu ambabaxo. Xasan Galayd wararka Kibel Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.